بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله وبعد. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأن سلام يا دمان أرضيدا يا والدين تشرفت بدن بإذن الله تبارك وتعالى. وحين مانتا halkan ku kala faa'iideysan doonaa maadadii caqiidada kitaabkeedii labaad. hore waxaynu soo qaadanay kitaabkii alqawaacid al-arbaca, imtixaanna waynu ku soo galnay. waxaana kitaabka ku yaalay afar qaacido oo furay iyo faham iyo hordhacba u noqon kara caqiidada fahamkeeda. kitaabka cusub aynu halkan maanta ka bilaabi doonaa waxaa la yidhaahdaa al-usuul athalaatha wa adillatuha ama thalaathata al-usuul wa adillatuha. magaca macnihiisuna waxa uu yahay saddexda asal iyo adiladiisa ama adiladooda. saddexda asalina waa saddex asal oo kitaabku ka warramayo oo inoo iman doona insha allahu tacaala iyagoo faahfaahsan. waxaana kitaabka loogu magac daray saddexda asal muhiimadda ay leeyihiin daraaddeed. kitaabka waxaa qoray الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه. شيخ خاص وكتابك هرانا قري إن شاء الله تبارك وتعالى بين كسود وأنه بلوغ كتابك أما حسد بلوغ ده. شيخ وحكو بلغ كتابك سن بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا دقن يعاد لي الشيخ وكتبتي سينكو بلغه بسم الله الرحمن الرحيم. laba sababood midkood ayayna culimadu yiraahdeen oo ugu bilaabaa. sababta koobaad waa ka barakaysanaya kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waayo kitaabka Ilaahay suurad kaste waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim marka laga reebo suuratu tawba. sababta labaad uu sheekhu ugu bilowdo bismillaahir rahmaanir rahiim kutubtiisa waxay tahay ku dayasho uu ku dayanayo nabigeena calayhi salaatu wassalaam. waayo nabigu fariin kasta uu diraayo ama fariimihiisa badankooda wuxuu ku bilaabi jiray bismillaahir rahmaanir rahiim. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa ku jira saddex magac oo ka mid ah magacyada Ilaahay ee wanaagsan. magaca koobaad waa Allah, magaca labaad waa ar-Rahmaan, magaca saddexaad waa ar-Rahiim. saddexda magac Ilaahay baa gaar u yihiin. magacyadaasina macaani bay tilmaamayaan iyo macnayaal. cid kale oo makhluuqa ah oo la bixi kartaana ma jirto. intaa kadib haddaynu darsiga bilowno, sheekhu wuxuu ku bilaabay iclam ogow, isagoo raba inuu dareenka iyo fahamka ardayga kitaabka baranaya uu diyaariyo soo jeediyo. ayuu wuxuu ku bilaabay iclam ogow ama ogeysiis raximaka allah, ilaahay ha ku naxariisto, annahu arrinku waxa uu yahay yajibu calayna waxa waajib inagu ah haddaynu muslimiin nahay tacalumu barashada arbaci masaa'ila, afar masalo la baranayo ayaa waajib inagu ah. sheekhu raxmatullaahi calayhi usluub kale oo lagu yaqaano ama dhaqan kale oo lagu yaqaano marka uu kutubtiisa bilaabayo ayuu inoogu bilaabay kow iclam ogow. marka wuxuu rabaa in waxa weeyaan oo ardayga wax ka baranaya ama kitaabkiisa baranaya uu dareenkiisa iyo fahamkiisaba diyaar garayo. waayo haddii adiga lagu dhahdo ogeysiis waxaad isu diyaarinaysaa waxa soo socda la is ogeysiinayo. waxaa kaloo sheekhu ku xigsiiyay caado kale ama dhaqan kale uu leeyahay raxmatullaahi calayhi oo ah duco oo ardayga kitaabka baranaya uu ducaynayo raximaka allah, ilaahay ha ku naxariisto. kadib sheekhu wuxuu inooga warramay annahu yajibu calayna inay waajib nagu tahay haddaynu muslimiin nahay tacalumu arbaci masaa'ila, afar masalo inaynu ogaano oo aqoon u yeelanno inay markaa waxa weeyaan waajib inagu tahay. masalada koobaad waxay tahay ama al-uulaa, mas'alada koobaad ee waajib ay nagu tahay inaynu ogaanaa waa al-cilmu ogaal.
ama aqoon ama cilmi inaynu yeelano. wa huwa cilmigu macrifatullah waa ilaahay oo aad aqoonsato oo aad garato oo aad barato oo aqoon buuxda aad u yeelato. wa macrifatu nabiyihi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo aad barato oo aad aqoonsato. wa macrifatu diin alislaam diinta islaamka oo aad barato bil adilla daliilana aad ku barato. cilmi ayaa ugu horeeya 4 masalo uu sheekhuna yidhi waa inaynu baranno ogaano. cilmiga ayaa ugu horeeya. cilmi waxaa la yidhahdaa 3dan arrin oo isu tegay: macrifatullah, macrifatu nabiyihi, wa macrifatu diin alislaam bil adilla. 3daa qodob oo isu yimi ayaa cilmi la yidhaahdaa. masalada labaad waxay tahay ama athaaniyatu, masalada labaad ee waajibka inagu aynanu ogaano haddaynu muslimiin nahay, alcamalu bih, cilmiga waynanu ku dhaqanno. alcamalu bih waynanu ku camal fallo cilmiga aynu baranay. masalada saddexaad waxay tahay addacwatu ilayhi, in aynu fidinno oo aynu ku baaqno oo dadka ugu yeedhno cilmiga iyo aqoonta aynu baranay. cilmiga iyo aqoonta la sheegayana waa ta diinta waxa weeyaan iyo shareecada iyo kitaabka Ilaahay iyo sunnada aqoon laga yeelanayo. masalada marka waxa weeyaan afraad ee waajibka inagu aynaynu ogaana waxay tahay as-sabru cala al-adaa fiih, inaynu dhibka inaga soo gaaraya ku sabirno oo ku adkaysano. waayo diinta marka la fidinayo dhibaata laga yaaba inay kaa soo gaadho dadka la gaarsiinayo. waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba nabadgelin adigana hadalkaaga badaa. wadaliilu qowluhu tacaala, waxaa u daliila 4 masalo: alcilmu, alcamalu bihi, addacwatu ilayhi, alsabru cala al-adaa fiihi. waxaa u daliila bismi illaahi araxmaan araxiim. waalcasri, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dhaaranayaa casarka ama waqtiga. ilaahay wuxuu leeyahy waalcasri, casarkan ku dhaartay, ina alinsaana bani aadam oo dhami lafii khusrin, khasaara ayuu ku jiraa, ila aladiina aamanuu, kuwa iimaanka laga helay mooyaane, wa camiluu saalixaati, camalada wanaagsanna qabtay ee sameeyey mooyaane, watawaasow bilxaqi, xaqana isu dardaarmay oo dacwaddii markaa dadka gaadhsiiyey, samihii iyo wanaaggii faray, xumihiina ka reebay. watawaasow bisabri, sabarkana isu dardaarmay iyo adkaysiga iyo in lagu sabro dhibaatada kaasoo gaadhaysa dacwadda fidinteeda iyo ku camalfalkeedaba. qaala shaaficiyu raximahu llahu tacaala, imaam shaafici wuxuu yidhi, waa imaam weyn oo caalima oo culammada muslimiinta ugu waaweyn ka mid ah: low maa anzala allahu, haddaanu alla soo dejin lahayn xujatan daliil calaa khalqihi, khalqigiisa aanu ku soo dejin lahayn, ilaa haadihi suura, suuraddan mooyaane, waa walcasri, lakafathum, waa ay ku filaan lahayd, weyniday weyn tahay suuraddaa daraaddeed. wa qaala albukhaariyu, imaam bukhaari wuxuu yihi raxmatullaahi calayhi, baabu lcilmi, waxa uu baabu yahay alcilmu, ogaalku iyo aqoontu, qabla alqowli, odhaahda way ka horeysaa, waalcamali iyo ficilkaba way ka horeysaa. ama cilmiga iyo ogaalka ka horeeya odhaahda iyo ficilkaba. daliilu qowluhu tacaala, waxaana u daliila hadalka ilaahay: faclam, ogow, isagoo ilaahay subxaanahu watacaala la hadlaya nabigiisa wuxuu ku yihi ogow, annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ila allah, mid xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay subxaanahu watacaala mooyaane, inaanu cid kale oo xaq lagu caabuda aanay jirin. insha allahu tabaaraka wa tacaala darsigeenan maanta wuxuu ka warramayaa 4 masalo ayaa layna barayaa. 4ta masalo waxay tahay: 1, alcilmu, waa aqoon inaad yeelato. aqoonna waxaa la yidhaahdaa 3dan arrin oo isu tegay: macrifatullah iyo macrifatu nabiyihi wa macrifatu diin alislaam bil adilla. inaad ilaahay barato, magacyadiisa barato, tilmaamihiisa wanaagsan barato, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam barato, abtirsiintiisa barato, dhaqamadiisa wanaagsan barato, siduu diinta ugu sabrayay, siduu u fidiyay aad barato, siduu u cibaadaysan jiray aad barato. macrifatu diin alislaam, diinta islaamka inaad barato. maxaad ku baranaysaa? bil adilla,
daliil baad ku baranaysaa. ilaahay waxaad ku baranaysaa ku baraya qur-aanka iyo sunnada. nebi maxamed waxaa ku baraya qur-aanka iyo sunnada sallallahu alayhi wasallam. diinta islaamka waxaa ku baraysa kitaabka ilaahay ama qur-aanka iyo sunnada. intaa kadib markaad aqoontaa yeelato waxaa lagaaga baahan yahay alcamalu bihi, inaad ku dhaqanto ood fuliso wixii aad baratay. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay intaa kadib markaad naftaadii ka soo baxdo addacwatu ilayhi, inaad walaalahaaga kale gaadhsiiso ood fidiso diintii. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay oo ugu dambaysa alsabru cala aladaa fiihi, dhibka kaa soo gaadhaya diinta in la fidiyaa ma sahlanee waa inaad ku adkaysato ood ku sabirto. waayo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo diinta fidiyihii diinta ugu weynaa ahaa uguna horreeyey ayaa dhibaata kasoo gaadhay badani, oo la caayay, oo wax kasta lagu yidhi, oo la dhibay, oo meesha ku dhashay laga saaray, oo laga qaxiyey. adiga oo markaa nebi ahayn oo miskiin iskaana dee hadalkeeda badaa. haddaba afartaa masalo maxaa u daliila qur-aanka? haddaynu caqiido dhaganayno daliil waa lagama maarmaan. daliilku waa lagama maarmaan. mas'alo kasta oo lagu sheego caqiida ah waa inaad daliilkeedii doonto amba lagu sheego, haddii kale caqiida maaha. ilaahay wuxuu uhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin. waxaa u daliila aayadan qur-aanka ah walcasri. afarta masalaba culummadu waxay ka soo saareen ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. masalada koobaad alcilmu, halkay daliil oga tahay aayadan ama halkay kaga jirtaa? ila aladiina aamanuu bay ku jirtaa. sidee ugu jirtaa oo looga soo saaraya? waxaa looga soo saarayaa cilmigu wuxuu ka horeeyaa iimaanka ama falka iyo ficilka iyo hadalka buu ka horeeyay soo ma iimaan lama heli karo ilaa cilmi la helo. maxaana u daliila aayadda qur-aanka faclam aynu aragnay, ogow la yidhi nebi maxamed, kadib loo sheegay odhaahdii iyo ficilkiiba loogu dambaysiiyey. masalada koowaad markaa halkaasi ku jirtaa. masalada labaad waxay ku jirtaa oo ah alcamalu bih, in cilmiga lagu dhaqmo. wa camilu saalixaati bay ku jirtaa, camalada wanaagsanna sameeyey. inta iimaan laga helay bay kadib camaladii wanaagsanna sameeyey, way ku dhaqmeen weeyaan. alcamalu bihina halkaasa laga soo saarayaa. watawaasaw bilxaqi waxaa ku jira masalada saddexaad oo ah addacwatu ilayh, in waxa weeyaan diinta la fidiyo oo cilmigii la fidiyo oo la gaadhsiiyo dadka u baahan. waxa weeyaan xumihii la reebo, samihii la faro. halkaasay ku jirtaa masala athalitha. masalada ugu dambaysa ee alsabru cala aladaa fiih, dhibka diinta fidinteeda kaasoo gaadhay in lagu adkaysto, halkanay ku jirtaa. watawaasaw isu dardaarmay bisabri, sabirka iyo adkaysiga. wallahu subxaanahu watacaala aclam. halkaasuu darsiga koowaad inoogu joogayaa. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.